والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله تعالى عاو حاميشا نوغو باللابنايا كتاب مقعيس اللي يراهدو عقد الجوهر في مولد النبي الأزهر. kitaabka annaga aan u naqaano ama Soomaalida inta badan ay u yaqaaniin cabirka ay u yaqaaniin ama barzanjiga ba loo yaqaano. Mawlidul Barzanji ayaa la yiraahdaa. kitaabkan marka waxaa muallifka ah oo alifay iska leh sheekhan la yiraahdo جعفر بن حسن ابن عبد الكريم البرزنجي. waxaa magaciisa la yiraahdaa Jacfar, magaca aabihiisana waxaa la yiraahdaa Xasan, magaca awowgiisana waxaa loo yaqaanaa Cabdul Kariim البرزنجي. waana ashraaf dadka annaga u naqaano ashraafta ama ahl bayt rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam. weliba wuxuu ka sii ahaay Xuseyni ayuu ka sii yahay. sheekhan marka Jacfar ibn Xasan ibn Cabdil Kariim ibn Sayyid Muhammad ayaa la yiraahdaa magaciisa. Barzanjina waxaa lagu nisbeeyey waa nisba qaryada la yiraahdo Barzanja ayaa loo nisbeeyey. waxaa la yiraahdaa tuulo ku taala Ciraaq. sheekha marka Jacfar ibn Xasan wuxuu ku dhashay Madiinatul Munawwara oo madiinatu rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam ah. madiinadaas ayuu ku dhashay taariikhda hijriga markii ay maraysay 1128 markii ay maraysay ayuu waxaa la yiraahdaa dhashay. dhinaca taariikhda miilaadiga markii la yiraahdana waxay ka waafaqsan tahay 1716 ayay ayadana maraysay taariikhda miilaadiga. xilligaas ayuu sheekha waxaa la yiraahday kownkan ku soo biiray isla madiinatu rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam ayuu ku barbaaray. isla meeshaas ayuuna qur-aanka ku xifdiyey, wuxuuna ka bartay sheekh Ismaaciil al-Yamani sheekh la yiraahdo ayuu ka bartay. qiraa'aadkana waxaa la yiraahdaa wuxuu ka bartay sheekha la yiraahdo Sheekh Yuusuf Saciidi ayuu ka bartay. markuu sheekha marka qur-aanka iyo tajwiidkiisa iyo qiraa'aadkiisa markuu xambaaray kadib, sida culimada lagu yaqaano caadadooda, wuxuu sheekha gudagalay ama u bilaabay inuu waxaa la yiraahday xasiliyo culumtan caqliyada ah iyo culumta naqliyada ah. culumta waxaa la yiraahdaa midna waa culumul caqli waaye, midna waa naqli waaye. marka culumtan caqliyada iyo midda naqliyada dalabkoodii ayuu sheekha gudagalay. weliba culamadii masjidka nabigeena salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi mudarisiinta ka ah ayuu waxaa la yiraahday oo ka bartay macnaa culumtaas oo ka xambaaray. wuxuu bartay la yiraahdaa sheekha fanniga naxwaha ah, wuxuu bartay sarfiga iyo mantiqa iyo macaaniga iyo bayaanka iyo badiica. macaani iyo bayaan iyo badiic saddexdaba waa furunta balaaqada.
balaaqa ayaa la isku yiraahdaa fannigaasa waxaa loo yaqaanaa saddexdan wixii kulmiye ayaa loo yaqaanaa macaaniga iyo bayaanka iyo badiica bayaanka ilaa saddex fanni ayaa saddex qaybood ayaa looga hadlaa badiica ilaa laba qaybood ayaa looga hadlaa wuxuu kaloo sheekha aad u bartay culumtan faraa'idka la isku yiraahdo oo wixii hoos yimaadaan fiqiga iyo xisaabta culumtaas ayuu bartay fiqigana guud ahaan ayuu sheekha waxaa la yiraahdaa si fiican ayuu waxaa la yiraahdaa u bartay iyo usuulkiisa iyo culum fara badan oo culumul xadiis ay ka mid yihiin oo musطalaxa ah culumta musطalaxa loo yaqaano tafsiirkii iyo axaadiistii iyo axkaamtii iyo siirada nabigeena salawaatullahi wasalaamu calayhi iyo cilmu tawaariikh intaas waxaa la yiraahday waxyaabaha sheekha uu ku takhasusayo si fiican u bartay ayay ka mid ahayd culumtaas hadda aan soo sheegnay iyo culum kaloo ka badanba sheekha markuu xambaaray wuxuu markaan u fadhiistay tadriis inuu culumta daraasiyo isla masjidka nabigeena salawaatullahi wasalaamu calayhi ayuu waxaa la yiraahdaa daraasadina uu ku bilaabay asagoo cumrigiisa waxaa la yiraahdaa 31 sano jir ah 31 sano jir asagoo ah ayuu bilaabay culumtii intaasoo waxa waaye 31 ilaa uu ka gaaray wuxuu xambaaray culumtii quraanka iyo culumtiisii iyo intaanu culum oo aan soo sheegnay ayuu waxaa la yiraahdaa ilaa 31 sano uu ku xambaaray sheekha marka tilmaamihiisana waxaa la yiraahdaa waxaa ka mid ahayd jamiilul wajhi ayuu ahaay sheekh wajigiisa waxaa la yiraahdaa quruxsan yahay haddana waxaa la yiraahdaa waji furfuran marbuuc alqaamatina ah haddana joogiisana waxaa la yiraahday oo dhexdhexeeyo indhihiisana waxaa la yiraahday waasic alcaynayn mufallaj alasnaan asiil alkhadayn intaas waxa waa tilmaamaha oo sheekha uu leeyahay ay ka mid ahayd indhihiisana waa weynaayeen ilkiisana way kala tagsanaayeen labadiisa dhafoorna way shubnaayeen sheekha marka raxmatullaahi tacaala calayhi manaasibta ama darajooyinka asaga uu qabtay ayaa waxaa ka mid ahayd mudaris ayuu ahaay khadiibna waa ahaay wuxuuna mudaris iyo khadiibna ka ahay masjidka nabigeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi muftina waa ahaayo madiinatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam waxaa la yidhaahdaa muftigeeda ayuu ahaay madaahibta dhammaan ayuu sheekha daraasay jiray macnaha waana iftow jiray madaahibta dhammaan afarta madhabbu waa yaqaanay waana iftow jiray macnaha afartaasi madhabbu waa iftow jiray mu'alafaad fara badan ayuu sheekha lahaay midkan keliya ma ahan oo hadda aan gudagelayna keliya ma ahan mu'alafaad kaloo fara badanna waa leeyahay hadda qisatu lisraa walmicraaj waxaa la yidhaahday mu'alaf oo sheekhu ugu hadlay oo la yidhaahdo magaciisa mukhtasaru daw ilwahaaj fii qisati alisraa'i walmicraaj sheekha waa lahay wuxuu kale intuu lahaay jaaliyat lkurab biakhbaari asxaabi sayidi alcajami waalcarab oo wuxuu ugu hadlay marka ahlu beder iyo ahlu uxud ayuu ugu hadlay saxaabadii nabigeena salawaatullahi wasalaamu calayhi ghaswatu beder ka qayb galeen iyo saxaabadii nabigeena salawaatullahi wasalaamu calayhi oo ghaswatul uxud ka qayb qaateen saxaabadaas waxaa la yidhaahday ayuu ka hadlay oo kitaabkaas ugu hadlay iyo kutubo kaloo fara badan oo sheekha waxaa la yidhaahdaa uu qoray oo qaarkoodaba saxiixulbukhaariga uu ku sharxay iyo kutubo kale intaba sheekha uu qoray oo fara badan ayaa jireen sheekha marka adduunyada waxaa la yidhaahday muddo dheer uu joogay kadib ayaa geeridu waxay u timaaday taariikhda hijriga markii la gaaray ee maraysay 1177 dhinaca kaloo miilaadigana 1763 cumrigiisana wuxuu ahayaa la yidhahda 67 sano ayuu cumrigiisa gaaray 67 sano ayuu cumrigiisa gaaray
تغمده الله تعالى بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بسم الله إلهي مجعيسى يا كتاب كان يكون الآباء الله سوء الرحمن إن حريص جودانيد نحريستو الله سوء الرحيم مد جارهانيد نحريستو الله مجعيسى يا كتاب كان يكون الآباء الحمد مهد لله إلهي سبحانه وتعالى يوسقناتي الذي الله صو افتتح بلاوي هذا مد كان بلاوي كاسو الوجود اي وجود كا بالنور كبلاوي نور كاسو المحمدي اي نبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه لو نسبيي نور كاسو أصاري أي سعناي في كل قضية أرن والبابا دحديس كسعناي وجعل يالي ببروز ذاته نور كاسي ذات ديسا ذات داسي صوبنا بحنتيدي كي يالي اختتام كل قضية والبابا قتمدي كي يالي وانتهاه هي قضية والبابا دماتكيدي كي ياليو وخص قاريالي أهله نوركاس أهل كيسي أهل كاسو الفاخرة إي سريي إي ونسله النوركاس فرعيسي فرعاسو الظاهرة إي مركاس الظاهر كأهاي نجاسوينka macnawiga mid xisiga baahirka ka ahay ku gaar yeelay bil asraari sirriyaal ku gaar yeelay asraartaas al ilaahiyati ee ilaahay subhanahu wa ta'ala loo nisbeeyo fakaano markaas waxay ahaadeen ahalkii iyo nasligii xisnan ay ahaadeen dhufays حسنغاسو حسينا اي ادق حسنغاسو لاهل الارض ارض اهل كيدا اسغناداي وحماتنا كو الاليناي اي اهادين لاهل الارض ارض اهل كي وحماتنا كو الاليناي اي اهادين معناها للدين دينك كو الاليناي اي اهادين والصلاه نحريس والسلام نبدجليو على خير البرية مخلوقات إله النبي أخر كبرنا دشيسي الله ياله وعلى آله آل كيس خير البرية آل كيس آل كاس دشودنا الله ياله وأصحابه وعلى أصحابه خير البرية أصحاب كيسي أصحاب كاس دشودي الله ياله وأتباعه خير البرية كوي راعي ayagana dushooda Allah yeelo wa man wa ala man dushoodan Allah yeelo duulkaasoo wala duulkaasibo waxa way jeclaaday ku khayrul barihi jeclaaday macnaha ay intii waxa la yiraahdaa khayrul barihi macnaha ma aragtay jeclaatay ayagana naxariis iyo nabadgelyo dushooda Allah yeelo wa man wa ala man dushoodan Allah yeelo wala waxa leedahay duulkaba hu khayrul bariyaha jeclaaday macnaha inta khayrul bariyaha jeclaatayna naxariis iyo nabadgelyo iyagana dushooda Allah yeelo wuxuu leeyahay sheekh raxmatullaahi ta'ala alayhi kitaabkiisa wuxuu ku bilowday bismillaahir rahmaanir rahiim ayuu ku bilowday hada bismillaahir rahmaanir rahiim in kutubta lagu bilowdane وعادة المصنفين علماء مؤلفين توهو كتب تألفوا عادة دوري أيها وحي كبير رسطي كتاب والبئي بلابايان إنه بسم الله الرحمن الرحيم كبلابان صوابها مركة كتاب دوري بسم الله الرحمن الرحيم يقول بلابان يا وحالي هذا واقتداء بالكتاب العزيز وقد يشو لقد ينعي كتابك عزيز كأه
كتابك عزيز كان وحالو الشيقاء وكتابك قرآن كا محايا لي سورة والبؤ وحالي رهدي قرآن كمدة وحالو بالله بسم الله الرحمن الرحيم حالو بالله marka saas darteeda marka musannifka asagoo kitaabkiisa waxa waaye ugu dayanayo kitaabka quraanka ugu dayanayo ayuu bismillaahir rahmaanir rahiim ku bilaaway waxa kale intuu yiraahdaa waxa kitaabka bismillaahir rahmaanir rahiim lagu bilaawday ku amal falay xadiiskii nabigeena sallallahu alayhi wasallam nabiga ayaa sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay arin kasto كل أمر ذي بال أرين كستو مهمة أصاحبه أما حالات لغا مرغا أصاحبه وأن بسم الله الرحمن الرحيم أن لغو بالله وأمد دبر قوان واي أرين كاس معناها أقضع واي وحان لغو الشيء أقضع عاسي فهو أقضع معناها قليل البركة إنو يهي بركة دي سميدة يرته إنو يهي حدي حتى وحواي حق قرال أهان أو لما يسرمه حق معنى أهان وما دميستر ماي وإن تم حسا لا يتم معنى ليراد حق حسي أهان إي حق موقع أهان أدو دميستر ماني حق معنى أهان إي وحال يراد حق بركة وانا كدميستر مين وحنا كتاب وقليل البركة بركة دي سيرتها ونغنى محيا لي بسنك لغم بالله بسنك لغو تجي أرين كستو مهم من سيدا سو كلاوا أرين كستو مهم ما أنت وحواي oo arimaha waxa la yiraahday himadaha waaweyn leh ama arimaha waxa la yiraahday xaaladaha waaweyn ah oo laga murgaaya leh aan bismillaahir rahmaanir rahiim lagu bilaaban wuxuu noqonaa arinkaas arin dabar go'ana noqonaa alhamdu mahad lillahi ilahi subhanahu wa ta'ala ya usugnaaday xamdigaasi alladhi allaha iftataha bilaabay hada mid kana bilaabay كاسو الوجود وجودك بالنور نور كبلاوي بالنور كبلاوي نور كاسو المحمدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه لون نسبي معنى إلهي سبحانه وتعالى يوم هذا علي مر لبعض مصنف رحمة الله تعالى عليه وإلهي سبحانه وتعالى يوم هذا علي عليه وحير هذي كون كان وجود كان بمعنى كون كان لما أنت سبب كبلاوي وحال يراهدا نورك نبينا صلى الله عليه وسلم عليه maxaa yeelay waxa la yiraahdaa inta wax kale la abuurin ka hor shay kastaba inta la abuurin waxa la abuuray oo lagu bilaabay nabiyullaahi muhammad sallallahu alayhi wasallam alayhi nuurkiisa lagu bilaabay marka ilaahi subhanahu wa ta'ala ugu mahad celiyo wuxuu ugu mahad celiyay alihi ku bilaabay koonkan iyo wujuudkan dhanba ku bilaabay nabiyullaahi muhammad sallallahu alayhi wasallam alayhi nuurkiisa ku bilaabay نور كاسو أصاري أي سعنا في كل قضية أرن والباب دحديس كسعنا بمعنى أمر قدره الله تعالى قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وحولي إلهي سبحانه وتعالى في كل قضية تنتاس معناها وأرن والباب إلهي سبحانه وتعالى قدري انتو سماوات كي أرض أبور كهر ب50,000 سنة كنتم كن أو سنة كهر أي إلهي سبحانه وتعالى أبوره سماواتك يا أرض كهر نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه نور كيسا أوهري ومركو ركول أبوره كنتم سنة كهر معنى كنتم سنة معنى ب50,000 سنة كنتم كن أو سنة كهر وجعل هدنا يالي ببروز ذاته نور كاس ذات ديسا ذات داسي صوبنا بحنتي دي اختتام كل قضية والبابا ختمدي ذاك يالي انتهاء قضية والبابا يولوبدي لما شيء ذاك يالي هدنا إلهي سبحانه وتعالى وحوليه وحان أقوم هذا علينا الله كي يالي ذات دي نبينا صلوات الله وسلامه عليه صوبنا بحنتي دي وبنانك الله صوب بحيه بمعنى ذاتي دي سنبي صلوات الله وسلام عليه مركب بنانك الله صوب بحيه إلهي سبحانه وتعالى وحوكي لي قضية والباء مركز جرتي ختم كيدو كيال وحالو ختمي نبي صلوات الله وسلام عليه ذاتي دي سبحانك لك ينايو معايا القضية والبحيكو أفجرنتي نبي صلوات الله وسلام عليه مركي لصو بنان بحيه والله ضلي معناه معايا القضية ينبضان أيام ماشا لو أفجره هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه وحاكم إذا قضيوين كاس
نبينا صلوات الله وسلامه عليه خاتم النبيين والمرسلين وحان نبي صلوات الله وسلامه عليه لو سو افجري اما لو ختمي وحال يراهدا النبيدا iyo mursaliinta lagu soo khatimay asaga lagu soo khatimay nabigeena sallallahu alayhi wasallam alayhi ka dambeeyay ama rasuul nabigeena sallallahu alayhi wasallam alayhi ka dambeeyay ma jiro marka nabigeena sallallahu alayhi wasallam alayhi ayaa lagu khatimay waxa kale oo kamid ah waxyaabaha ilaahay subhanahu wa ta'ala nabiga daatadiisa banaanka markii la keenay uu ku khatim waxa kamid ah mugdigii markaas ka jiray xagga islaamka ka jiray wixii gaalada iyo wixii la midka ah oo waxa la yiraahday oo ayagana waxa waaye macnaha munaafiqiin ah ama ba gaaladii waxa la yiraahdaa dhamaantood meeshaas lagu soo afjaray nabigeena sallallahu alayhi wasallam alayhi daatadiisa banaanka markii la keenay ayaa ayagana macnaha lagu khatimayo meeshaas ayaa ayagana waxa la yiraahdaa lagu khatimay macnaha wa khassa hadana gaar yeelay ahlahu nuurkaas ahalkiisi wa khassa hadana gaar yeelay ahlahu nuurka ahalkiisi ahalkaasoo alfaakhira ee markaasi sareeyay ana waa qaraabadii nabigeena sallallahu alayhi wasallam alayhi iyo wa naslahu nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi farciisi farcaasoo adbaahira ee daahirka ah wixii ceeb oo xisi ay macnawi laga dahiray ku gaar yeelay bil asraari ku gaar yeelay siraryaalo asraartaasoo al ilaahiyati ee ilaahay subhanahu wa ta'ala loo nisbeeyay wuxuu leeyahay hadana ilaahay subhanahu wa ta'ala hadana uu ku gaar yeelay nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi ahlkiisa waa qaraabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi qaraabadiisa oo sareeyeen oo faaqirka ahaayeen macnaha iyo nasligiisa nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi farciisa oo awlaadiisa ah oo wax Allah wixii ceeb oo macnawi ah iyo xisiba laga dahiray alihi ku gaar yeelay iyo hadana mahad u sugnaatay oo leeyahay asraar ilaahiya ku gaar yeelay hada asraarta waxa la yiraahdaa ilaahiyada wa ma afaabahu Allah ta'ala waxa ilaahi subhanahu wa ta'ala uu ku shubay ala qulubi uu ku shubayo min al ma'arif ma'arif rabbaniya aqoon rabbaniya oo ilaahi subhanahu wa ta'ala qulubtaas uu ku shubay ayaa loo yaqaan macnaha hadana ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu ku gaar yeelay nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi qaraabadiis iyo ahlkiisi awlaadiisaba asraar rabbaniya Allah isku gaar yeelay ayaa hadana mahad u sugnaatay oo leeyahay فكانوا أهلكي يا نصلي وحي أهادين حسنا أي أهادين دفيس حسنا أي أهادين دفيس يا حسن قاسو حسينا أي أدق معنا دفيس أو حالي هذا وأدق أي أهادين معناه دفيس كاسي أدق أي أهادين فكانوا وحي أهادين وأهلكي إيو وحالي هذا أولاد نبينا صلى الله وسلامه عليه حسنا أي أهادين دفيس xisnigaasoo xasiinan ee adag macnaha aalabeedka nabigeena sallallahu alayhi wasallam alayhi ayaa waxa lagu shabahay dhufayskana waxa la yiraahdaa waa albinaa hawla alqarya waa dhismaha oo waxa la yiraahdaa oo loo sameeyay tuulada ama meelaha ma artay lagu soo wareejinayo qaryada ama tuulada lagu soo wareejinayo la yiraahdaa wareegaas marka waxa la yiraahdaa dhufays waa macnaha oo wax Allah wixii oo dhibaato ah loogu ilaalinayo tuuladaas loogu ilaalinayo isla sidaas oo kale marka aalabeedka nabigeena sallallahu alayhi wasallam alayhi waxa dhufays loogu dhigay ahlu ardada dhamaantooda dhufays loogu dhigay waxay ka ilaalinayaan ardada ahlkeeda waxay ka ilaalinayaan wax Allah wixii markaas waxa la yiraahdaa xumaan ah iyo wax Allah wixii dhibaato ah oo ardada ahlkeeda u socdo ayaa loogu dhigay macnaha dhufays loogu dhigay marka fakaanu waxay ahaadeen حسنا أي أهادين دفيس حسنغاسو حسينا أي أدق حسنغاسو لأهل الأرض أسقنا ذيو وحماتا كوا إلالنا وحفظنا ينوي أهادين للدين الدين إلهي سبحانه وتعالى حفظنا معنا إلى دين إلهي كوا حفظنا ينوي أهادين هذا الشيخ عن كتاب كان مانت إسكاله وعلى بيت نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنا قاعد نقانا أشراف أو نقانا لكن هو أشراف ومعنى أشراف أيها اللي هذا إلهي سبحانه وتعالى حقيسي ayaa laga sharfay macnaha kuwaas marka diinta ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaali u naqdeen ayaga ilaaliyeen ilaahay subhanahu wa ta'ala ayagu ku ilaaliyo xumaatan lidiin ay ahaadeen wasalaatu naxariis wa arrahmatu almaqrunatu bita'zim
نحريس ولا حريرية تعظيم وينين للحريرية والصلاة بمعنى أي الرحمة المقرونة بالتعظيم وينين للحريرية والسلام أي التحية اللائقة وحالة سلام أهبان على خير البرية مخلوقات كإلهي نبي أو خير كبدنا يدوشي سيها طبعا صلاة داس والرحمة المقرونة بالتعظيم سلامته أيضا التحية نبينا صلوات الله وسلامه عليه وخير البرية مخلوقات كإلهي نبي أو خير كبدنا وعلى الإطلاق وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق وسيد اللي يراهدي وصاحب الجوهرة ويراهدي جوهرة التوحيد نبي صلوات الله وسلامه عليه على الإطلاق مركي اللي يراهدو أصيغ أوفضي وبضن مركي إلى خير البرية مربع دي لإطلاقه حتى نبينا صلوات الله وسلامه عليه مقعيس لشيء واي محمد هدان لدين على خير البرية محمد هدان لدين أما على خير الوراء محمد حتى هدان لدين نبينا صلوات الله وسلامه عليه أصيغ مركز وحالي يراهد لولي جيدا أصيغ يا معناهاس مقعاس وكدعي كرا إلى خير البرية على إطلاق أصيغ ونبينا صلوات الله وسلامه عليه وحولي أمرك والصلاة النحريسي والسلام نبتقليو على خير البرية المخلوقات كإلهي نبي أوخر كبنا يدوشيسي الله ياله وعلى آله نبي صلوات الله وسلامه عليه آل كيس آل كاس دوشودنا الله ياله إيه وأصحابه نبي أصحاب كيس حتى دوشودنا نحريسي نبتقليد الله ياله هذا وحالة هاي آلك وحالة هذا مقام الدعاء مركي لجوجو وحالة هذا مؤمن والباء تقية أي لو يقانا لكن آلك وحالة هذا مقام الزكاة مركي لجوجو وأقاربتي نبينا صلوات الله وسلامه عليه كلية أي مركز لو لجيداو نبي صلوات الله وسلامه عليه قرابتي سلو لجيدا هذا مركز مقام كأن جوجنو ومقام الدعاء مقام الدعاء ما دام أن جوجنو وحالة وحالة لجيدا مؤمن والباء أي لو لجيداو لكن مقام الزكاة مركي لجوجو وحالي هذا وهير بنو هاشم هير بنو عبد المطلب أيالي هذا أيا لو يقانا معناه مقعاسو مركا هذا آلك إيا وأصحابي النبي صلوات الله وسلامه على أصحابتي صحابة أصدوش شوضاني نبي قليداس إن حريستاس الله يالو صحابي وحالي هذا أما مهاجر ونغكرا أما أنساري ونغكرا المهاجرين والأنصار دمان توضاني نحريستاس إن بدقليداس دوشودي الله يالو ومهاجرين وأنت نبي صلوات الله وسلامه عليه لسوه جروتي أنصارتنا وأنت نبي صلوات الله وسلامه عليه وهي اللي سيو سود دويين انت صلي هذاو ماشان مركا صحابه نبينا صلوات الله وسلامه عليه اي آل كيسه اي اتباعدي انت الراعدي وعلى اتباعه نبي صلوات الله وسلامه عليه انت الراعدي ضمان اي ومن دون الله يالو ولا هو منكب هو النبي صلوات الله هو خير البريه سجعلااديو اي انت تدول له النبي صلوات الله وسلامه عليه جعلادين ايغنا نبدغليو iyo naxariis bishooda Allah yeelaw marka salliga iyo salaamta hadda waxa la yiraahdaa musannifka sidoo bismillaahir rahmaanir rahiim ugu bilowday ayuu wuxuu ku labeeyay xamdigu ku labeeyay xamdigaas ayuu ku labeeyay wuxuu hadana ku sadeexay as-salaatu was-salaamu ala khayril bariyati wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man walah wa ku sadeexay asagan maxaa yeelay وفرتومد وفرتوما إلهي سبحانه وتعالى آيديس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أصوى فرتوما يمرك آيات داسي أيها النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه كسلي وانا سلامي صلي سلامت هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه كلية كما أكياننا النبي صلوات الله وسلامه عليه آل كيسا أصحابتيسا إيه أطباعديسا إيه أنت الله أنت نبي صلى الله وسلامه عليه جعلاتين وحالي هذا واكو دري أنت أسواكو وضا دري مركا هذا وحالي هذا مركي يصلي إيه سلامته آلك إيه أصحابته اللي يصلينا لنا سلامه وحالي هذا راعسين أيضا النبي صلى الله وسلامه عليه الراعسين أي أيضا اللي يصلي كرا صلاة هذا أيضا اللي يقولي له وحالي هذا مجرته أنا الصلاة والسلام على صحابة رسول الله على أصحاب رسول الله
الصلاة والسلام على آله إيو أما صلى الله وسلم على آله إيو وحيابا سلام عليه كرو وإن على طريق التبعية أيضا مركز للراعينا نبينا صلوات الله وسلامه عليه للراعينا معناها أصحابتي سي النبي للراعينا أصحابتي للراعينا أتباعي سي أصحابتي سي أصلا الراعينا أيها وحالي إذا الله صلي كرا لكن سيجار أهان وحالي إذا الله ما صلي كرا معنا سيجار أهان الله ما صلي كرا معنا مركز سيدا سا وحالي إذا هذي لو راعيه إن لك الله ريبا مركز صلي سلامة لك الله ريبا نكراهيه إن صلى الله على سيدنا محمد كليل يراهد أما سلامته كل يرى وحالي يراهد اللي قوني ياله والنبي صلى الله عليه وسلم عليه لو قوني يالنا كراهيه ومحير إلهي سبحانه وتعالى أيدي سبحانه كمركو كهد له لبض واجمعي أو حجر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبض ولا جمعي مركز سيدا سو كلا مركز وحال ربا قف والبو نبينا صلى الله عليه وسلم عليه وصلينا عليه قف والبو السلام عليه نبي صلى الله وسلم عليه إن لك الريبين معناه صلي سلام تلبض لك الريبين وبعد فيقول العارف الذي حاز من الفضائل كل منحة سنية وتحلى بعلم الظاهر والباطن وصار ديدنه وغاية مرماه ذو النصب الظاهر الذي حبه في القيامة منج من النار المحمية مولانا السيد جعفر بن حسن من إلى البرزنجي نسبته ومنتماه أبتدئ الإملاء باسم ذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه الله سبحانه وتعالى